markana jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland waxay sheegtay in ay bilaabayaan qorshe ay ku xakameynayaan wararka been abuurka ah ee lagu baahiyo baraha bulshada. Arrinkan waxa uu soo baxay qoraal ay soo saartay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada labadii maalmood ee u dambeeyay waxa ayna waday shirar ku saabsan adeegsiga tiknoolajiyada. Sadiq Maxamed Burmad wariyaheenna Hargeysa ee BBC-da ayaa arrintan ka wareystay wasiirka isgaarsiinta Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi. iminka tusaale wax badan in dadka qaarkood magacdi lagu sameeyo waxyaabo khaldan laga qoro sawiraha leeyihiin si khaldan loo adeegsado marka waxaan rabnaa in qofka xad uu ku yeesho qaabku adeegsanay bulshada marka waxaan wadnaa waa xeer weey xeerkaas oo siyaasad laga dhigan doono hadhowtoole kale waxaan inoo imika bilaabayna maaha wadamada badan ee dimuqraadiyaduna hore u sameeyay marka best practice-ka adduunka ka soo qaadan doona hadii la yiraahdo marka wasiir waxyaabaha xakameynaysan ma qoraalada dadka shacabka ah waa mise kuwa saxaafadana way ku jiraan cid wal oo adeegsanaysa baraha bulshada ama haato urur ama organization waxa yiraahdaan ama media haado ama qof caadi haado waxa rabnaa in xeerku qeexo qaabka ugu habboon ee loo adeegsan karo iyo waxyaabaha dambiyada ka dhalan kara sidoo kale uu qeexo ciqaab xeer ciqaabadu noqdo ay fulinayaan hay'adaha garsoorka waxyaabaha ugu badan cabashooyinka noo yimaaday ka mid tahay dad khaladaad ka dhacay bari wadoogeed sawirro la faafiyo dad gaari lahaayeen in la helo qaab loo dabageli karo cidii ugu horeysay faafisay sawiradaas oo kale sharciga Soomaaliland wuxuu aad u dhowray xorriyadda hadalka iyo xorriyadda saxaafadda marka arrintan dadka hadii cidii u macnaysataa in lagu farageliyo xorriyadda hadalka maxaad uga jawaabaysan xeerku kale baarlamaanku mari doona baarlamaanka ansixinaya anaga laftaygu markaan imka dhameeyno waxaan u yeedhi doonaa cid kasta oo danaynaysa oo dood baa laga geli doonaa dood furan baan u furaynaa kalena jirtaayo kale best practice-kan hore u sheegay waxa kamid ah wadamada Ghana kale Afrika ugu horeeyay dimuqraadiyadda South Africa kamid ah iyo Kenya marka doodooda waan aragnay way jiraan ururada xuquuqul insaanka xisbiyada mucaaradka hore aan aragnay doodooda kale marka waan ka qaadan doonaa waan ka tusaale qaadan doonaa insha Allah waxa kale oo soo qaadeen dadka baahiya waxyaabaha dhaqan xumada ah waxaana jira imaka aabab Soomaalidu waliba si gaar ah ay maaragtay sawirro iyo muuqaallo aan anshaxaan wanaagsan inay ku baahiyaan marka shirkadahan inaad ka wada shaqeynaysan baad sheegteen arinta xeerka ka horba miidaan iska kaashan karin sida wax uga qaban lahaydeen waa run kale imka adeegsiga baraha bulshadu wuxuu leeyahay waxyaabo cusub oo dhaqankeena ka soo jeeda dhaqankeena suuban iyo diinteena farayso waliba dhalinyarta wixii ka yar soddon ay aad ugu badan yihiin marka qodobkaas wuxuu ka hadlayaa in dawladda oo anagu matalayna xukuumadda wasaaradda iyo shirkadaha adeegyada bixiya iyo dad kale danayaasha sida culimada kale bahda dhaqanka bulshada kale la isaga kaashan lahaa si loo xakameyn lahaa marka anagu kalina farsamahan in imika la yiraahdo la xiro laakiin wax ka horeeyeen horta la sameeyo ay gelin la isla qeexo maxaa dhaqanka suubana maxaan ahayn marka kullu ku dambeyn doontaa laakiin ujeedadu waxay tahay in bulshadu hal meel uga soo istaagto waxaad kale la socotay imika trends fara badan oo aad u khariban ay dhowrkii labadii sano u dambeeyay ay soo kordheen